السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبضي داود يال ميل كستو aad joogtaan ba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku eegayno gasiirada weyn ee Sacaadadiin kuna taala duleedka magaalada Saylac. haddaba maxaad ka taqaanaa taariikhda gasiiradani balse maxay tahay badka ay ku fadhido taariikhdan gasiiradani? haddaba shabakada caalamiga Shinila News ayaa u koorgashay xaaladda gasiiradani. haddaba gasiiradan marka aad eegto waa dhul yog qurxoon isla markaasina dhirta iyo biyaha baddu ay iskaleen, waana gasiirad la is oran karo muddooyinkii ugu dambeysay waxa ay ku fiican tahay hodheelada caalamiga ee caalamka. haddaba gasiiradan waxa aan booqday subax aroor hore waxaana ila socday wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul wanaaga Maxamed Axmed Madar. haddaba gasiiradani waa dhul hodana, waa dhul daaqsimeed, waana dhul wacan. haddaba badka ay ku fadhido gasiiradani ayaa iyadu ah isku wareeg 200 oo mayl. haddaba gasiiradani waxa ay tahay tan ugu dalxiiska weyn isla markaasina ay dadweynuhu u dalxiis tagaan. haddaba gasiiradani waxa ay tahay meel ku haboon in laga dhiso hoteelada caalamiga ee sida caalamka laga yaqaano. gasiiradan haddaba dadka intooda badani ma garanayaan. haddaba gasiiradani waxa ay qaarkood u tagaan maalmaha ciidda inay isku soo sawiraan isla markaasina ay iskaga soo qaadaan sawiro kala duwan oo markaasi dhul quraxa maadaama ay tahay tan ugu qurux badan. haddaba gasiiradani oo markaasi aad eegto dhulkaaga waa kan gudoomiye Maxamed Axmed Madar oo sharxaya sababaha gasiiradani ay u qurux badan tahay. جزيرة يا سعادتين oo ku taala waqooyi galbeed magaalada Saylac badda dhexdeeda waa jasiirad aan runtii deegaan lahayn oo aan ciid deganayn laakiin nolol badan ay ka muuqato haddii ay tahay xagga geedaha iyo dhirta waxyaabo joogana inta aan imika maraynay waxaanu aragnay shimbiraha marka laga yimaado cawl leeydi waxa lagu dhaqay ama waxay ka joogtaa tafiir waagi Ingiriisku joogay ayay ka hadhay oo la keenay oo lagu dhaqay. tiradeedu imika ay tahay runtii ma koobi karo oo ma aan wada arag, laakiin adigu tiro haddii la daryeelo يعني ترمي كرتو كنا قبل كرتو ماشي أيه تهاي. هدي أنا جزيرة النور يجوه الرئيسية عن تجو أما أنا ما ضو أنتي عن نولا والمغلي شري جزيرة سعادتين هلا هذا نوحة دور جزيرة وكله وحاي كم تهاي دول كبد كويا له اللي دقي كرو جمهورية الصومال bay ka mid tahay waa dhultii ku haboon dalxiiska kulley wasaaradda ama cidii dalxiiska qaabilsan kulley warkeeda way haysaa information badanna way ka haysaa kulley qorsho ama hadii la kuuriyay ama dhow ama dheerna waa ay ka leedahay. sidoo kale maadaama ay tahay meel nolol ka jirto deegaanna ah kulley wasaaradda deegaanka iyo hadii la ku rooyahay way yana kulley qorshaha way ugu jirtaa inkastoo aynaan dhulkiiba xaalufkiisa iyo ilaalintiisa aynaan weli boganin. tanna waa qayb sugaysa runtii hay'adaha ku shaqada leh. waxaanu naga tahay anagu kormeerka iyaga ayaanu ku darsanay bal inaanu soo aragno halkaa iyo nolosha ka jirta iyo hadiiba loo baahdo ama laga fakiro waxay ku soo kordhin karto runtii dhaqaalaha dalka way khayraadka dalku u leeyahay bay ka mid tahay. markaynu xag dalxiis ka hadlayno runtii waxa weeye waa meelo keeni kara dakhli badan dalka soo gali kara haddii la maalgeliyo oo laga shaqeeyo. dabcan xukuumaddu waxay ka leedahay kulli qorshe uga yaala haddii aan ku naasibay afta adiga ku horay inta nool ku aaminay
waxaan sugi nasiibkay nacib saalku bermiyo nudubiga ma dhowrtide waxaan sugi nasiibkay nasteexaadi ka dhigataa nabarani igaadhe nasteexaadi ka dhigataa nabarani igaadhe nacib saalku bermiyo nudubiga ma dhowrtide waxaan sugi nasiibkay nacib saalku bermiyo nudubiga ma dhowrtide waxaan sugi nasiibkay nasteexaadi ka dhigataa nabarani igaadhe nasteexaadi ka dhigataa nabarani igaadhe aduniyada iga jaray jacaylkana nintaaqiyo naxli iyo xumaan baday soo dooqa nacaskii rajanaawil rajanaawil ima odhan rajanaawil rajanaawil ima odhan daawadayaal gasiiradani marka aad eegto waa dhul ku qurux badan bilixda indhahaaga iyo dhagahaaga waana dhul loogu talagalay in lagu raaxaysto isla markaasina raaxadu ay ku soo jiidanayso intaas daawadayaal waxaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka eenu ku eegaynay gasiirada weyn ee magaalada Saylac waxaa soo diyaariyay barnaamijkani anigoo ah wariye Cabdisamed Maxamed Cabdilaahi dhammaantii iyo dhammaantiin inta aan ku kulmi doono barnaamij lamida waa bahda Shiniila News ee magaalada Saylac oo inaga tagaysa sida iyo nabadgelyo